Waa tahay daawadayaal, muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa xaalado haddii la dhayalsado halis gelin kara caafimaadka indhaha iyo aragga. Inta badan dhibaatada caafimaad darre ee indhaha ku dhacda waxay ku bilaabataa xaalad fudud oo laga yaabo in si dhaqso ah loo daweyn karo haddii waqtiga ku habboon iyo dhakhtarka saxda ah lala helo. Waxaa ka mid ah xasaasiyadda indhaha ama alerjiga indhaha iyo indha engega. Laakiin waxaa jira xaalado qaar oo calaamad u ah in isha uu hayo xanuun khatar ahi. Haddii aan bilowga la daweynna laga yaabo in dhibtiisu ay sii adkaato. Warbixin ay daawacday Al Jazeera oo ay kasoo xigatay shabakad laga leeyahay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo The Healthy ayaa haweeney qoraa ah oo lagu magacaabo Aman Gardner ay ku sheegtay calaamado lagu garan karo marka xaalad caafimaad ee isha ay khatar tahay. Dhagax isha kaaga jira. Marmar waxaa dhacda indhaha oo aan dhib hore qabin in qofka uu dareemo in isha uu dhagax ama ciid yar ka gashay. Xaaladan oo kale gaar ahaan marka la hubiyo in dhagax aanu isha ku jirin ay ismoodsiis ahayd, waxa ay calaamad lagu garto u tahay in indhuhu ay engegan yihiin ama biyaha ay u baahnaayeen aanay helin. Haddaba nin wata shahaadada doctorate-ka cilmiga caafimaadka waxa uu sheegay in dareenka noocan ah uu inta badan ku lamaanan yahay calaamado kale. Tusaale ahaan, waxa uu qofka dareemaa in isha ay wax ka mudayaan, in ilayska uu dhibayo, in indhuhu ay ilmeynayaan. Haddii aad tahay dadka waqtiga badan ku qaata eegista muraayadda kombiyuutarka ama telefoonka gacanta, haddii socodkaaga gaaro markaasi gaari wadista markaasi safarada ahi uu badan yahay ama akhriskaagu aad u badan yahay, waxaa hubaal ah in indhuhu ay marar badan engeg dareemaan, taasi oo ugu dambeynta noqonaysa xanuun ay tahay inaad la noolaato. Haddaba Dr. Stephanie, dadka shaqadoodu sidan ay tahay waxay kula tacaalaysaa ama kula talinaysaa inay joogteeyaan la socoshada dhakhtarka indhaha si ay daawada ku habboon u helaan inta aanu xaalku xumaan. Ilays iyo walxo sabaynaya. Waxaa dhacdaa in dadka qaar ay arkaan baro yaryar oo midabkoodu ay caddaan yihiin oo araggoodu hor sabeynaya ama hor socdo. Dhakhtaradu waxay sheegaysaa in barahaasi lagu magacaabo sabeeyaasha isha inta badani ay qarsoomaan marka uu qofka doono inuu fiirsado. Haddaba Matthew Grossky waa dhakhtar kale, waxa uu sheegay in caadi ahaan sabeeyaasha ishu ay yihiin arrin caadi ahaan ay arkaan dadka da'da weyn, laakiin haddii arrintan ay yaraan kugu timaado ama kedis noqoto ama qofka haba weynaade uu dareemo isbeddel ku jira sabeeyaasha qaabkii uu uga bartay qaab ka duwan, ama uu arko ilays sida hilaaca indhihiisa marmar hormaraya oo aan run ahayn, in haddii uu hadh ama dahaadh markaasi ama dahaadh aan iraade boode ah uu ka sokeeyo aragtida waxa ku xeeran. Dhammaan arrimahaasi waxa ay yihiin calaamad muujin kara inay jirto cillad dhinaca shabakadda aragga, gaar ahaanna kala fuq ku yimid ama dilaac. Shabakadda ishu waa dabaqad nudo ah oo isu tegay oo ku jira qaybta dambe ee isha, kuwa oo qabta sanyaalayaasha ilayska ee aragga keenaya. Waxaa xusid mudan, qofka marka uu da ahaan weynaado ama nabar isha uu kaga dhaco, inay shabakadda araggu ay ka durugdo isha inteeda badan. Taasi haddii aan dhaqso loo daweyn waxay keenaysaa in aragga oo dhami uu qofka uu ka tago. Tan xigta waa bar iyo dhalaal. Haddaba kalkaaliye markaasi bara sare ah oo dhiga caafimaadka indhaha kana ah jaamacadda caafimaadka ee North Carolina ee Mareykanka ayaa sheegtay in markasta uu qofka da ahaan sii weynaado in ay qara weynaato bu'da aragga ee bikaacda loo yaqaano, maadaama ay qaybtani aragga qaabilsan ballaarashadeeda ku timid. Waxay sababaysaa in aragga uu hadhgalo ama cad ka soke uu maro. Dhakhtarkii waxa uu isna yiri, Matthew la oran jiray, wuxuu intaa ku darayaa in calaamadaha xilligan qofka lagu arko ay ka mid tahay baro madow oo aanu jirin oo uu arko, ilayska uu qofku u adkeysan kari waayo ama xasaasiyad ku keena habeenkii oo uu markaasi habeeno yeesho, taasi ay mararka qaarkood sababto inuu gaariga wadi kari waayo, in markaasi aragyo markaasi isku jiro uu il keliya ku arko. Xaaladahan inkasta oo ay da'da ku imaan karin, haddana markasta oo uu qofka isku arko waxay u badan tahay in uu dhakhtar takhasus leh uu dhaqso ula kulmo.
kaar ayaa ka mid ah calaamadaha indhaha markaasi xanuunadooda muujinayo. Waxa uu dhakhtarka sheegay garaaca uu qofka isha ka dareemo inay tahay xaalad aan si qeexan loo sheegi karin sabab keliya oo keentay, balse si guud u muujinaysa inay tahay calaamad xanuun ah. Dhakhtarku waxa uu sheegay in xaaladaha xanuunka ee garaacaasi keenay ay ka mid yihiin qorax ama dillaac ku yimaado xaydha isha, isha qaybta cad oo weynaata, ama aragga oo daciifa. Dhakhtarka waxa uu ka digay caagga isha gudaheeda lagu dhejiyo ee muraayad ahaanta loo isticmaalo, isagoo sheegay in inta badan uu sababo dillaac ku yimaada isha qaybteeda xaydha, dillaacaasi oo marka dambe weynaada. Xasaasiyadda ilayska. Akadeemiyadda Mareykanka ee Caafimaadka Indhaha waxa ay warbixin ay soo saartay ku sheegtay in xasaasiyadda ilayska ay noqon karto calaamad muujinaysa inuu jiro caabuq isha ku dhaca oo ah xanuunka loo yaqaano eye herpes, oo ay inta badan sababto bakteeriyada magaceeda loo yaqaano herpes. Bakteeriyada herpes waa isla isirka bakteeriyo ee sababa dillaaca xilliga qaboobaha ku dhaca maqaarka, ilmada ama oohinta, indhabiyoodka ama ilmada oo indhaha si aan caadi ahayn uga horta ama uga shubanaysa. Waa calaamad muujinaysa in qofka ay ku dhacday xasaasiyadda indhaha ama xasaasiyadda ilayska. Inta badan xasaasiyaddu waxay ku xidhan tahay xilliyada qaar, waxaana sababa manka hawada duulaya oo isha gala. Laakiin waxaa jira sababo kale oo keeni kara xasaasiyadda. Waxaa ka mid ah noole ilmo qabata ah oo boodh ku dhex jira haddii uu isha galo, ama maaddooyin kulkulul ama gubasho keenaya oo isha gala sida cadarka iyo qiiqa. Manka noolaha ilmo qabatayga boodhka ku dhex jira ama boodhka ku dhex jira qaar ka mid ah maaddooyinka ku jira qiiqa iyo cadarka iyo dhogorta xayawaanka oo dhammaantood xasaasiyad ku keena indhaha, ayaa sidoo kale keena xasaasiyadda guud, islamarkaana xiiqda kiciya. Caadka ayaa ka mid ah in aragga uu caad ka soka maro. Waxa uu keeni karaa sababo badan oo ay ka mid tahay aragga oo daciifay oo u baahan in muraayad lagu kabo, waana arrin da' kasta dhici karta, laakiin dadka waayeelka aad looga fisho, gaar ahaan ragga dhow dadka markaasi aragga dhow ama short sightedka loo yaqaano. Dhinaca kale, waxaa jira sababo khatar oo keeni kara dahaarkaasi ka soka maraya aragga. Waxa uu qofka eegaya waxaana ka mid ah markaasi labada xanuun ee loo yaqaano macular degeneration iyo glaucoma, oo inta badanna da'da ku xidhiidhsan, suurtagalna ay tahay in indho la'aan ay keenaan. Haddaba, haddii aad dareento in araggaaga uu shucaac ama dahaar marmar ka sokeeyo indhaha, waxaa waajib kugu ah in aad sida ugu dhaqsiyaha badan dhakhtarka aragga aad ula kulanto si aad u ogaato cilada caafimaad ee araggaaga ku habsatay, islamarkaana baaritaan wanaagsan aad u aado. Fadlan inoo like garee muuqaalkan, aragtidaada inoogu qor qaybta hoose, wax badanna waad ka faa'iidi doontaa.